wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland Bosimira Maxamed ay weheliyaan wasiirada wasaaradaha xidhiidhka golayaasha arrimaha gudaha xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga cadaaladda la taliyaha gaarka ee madaxweynaha Somaliland ayaa ka qayb galay kulan lagu daahfurayay koobka nabadda Ceelafweyn oo ka qayb gali doonaan kooxo ka dhisan degmadaasi Ceelafweyn kulankan oo kooxahaas loogu qaybinayo direesyo iyo agabka isboortiga sidoo kale waxa kulankan ka soo qayb galay maamulka degmada Ceelafweyn Cuqaash iyo waxgaradka degmadaasi Ceelafweyn ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay maayirka degmada Ceelafweyn aqoon-yahan Yaasiin Xasan Saleebaan Cuqaash iyo waxgaradka degmadaasi farxad noo ah inaynu isugu nimi qabanqaabadii iyo furitaankii koobkii nabadda aynu qaban doono insha Allah taala inoo furmi doona waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa dadkii soo abaabulay oo hawshatan maanta inoo hirgeliyay koobkan waxa la yiraahdaa maadaama koob aynu qabanay nalkii nabadda aynu qabanay maantana waxaanu qabanaynaa tartanka nabadda ee Ceelafweyn kubadda cagta waxaan u mahad celinaa cid kasta horta alaabtan ama sporting ka soo shaqeysay oo waqtigeesay oo juhud gelisay oo ugu horeeyo wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha oo aad u noo soo dhaweeyay wasiirka dhalinyarada ciyaaraha Bosimira oo gacan weyn ka geystay inuu nagala shaqeeyo koobka soo qabsamo aad baan ugu mahad celinaynaa sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa gudoomiyaha hay'adda samafalka cilmi baarista ka shaqeysta ee la yiraahdo Talo Initiative injineer Jaamac Gaawush oo la wada garanayo ku deeqay agabka dhamaantii ku deeqay isagu aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa sidoo kale waxaan halka xusid mudan oo isna nagala shaqeeyay oo aad iyo aad waqti badan geliyay injineer Jaamac Yaasiin Daragaad Ceelafweynta hore ah oo isna waqti iyo juhdi geliyay koobkaasi uu qabsoomi lahaa iyo sidii looga shaqeyn lahaa aad bay u mahadsan yihiin aniga oo ka socda hay'adda ama NGO-ga Kaafo oo reer Ceelafweyn aan u deystay kolley degmadiisa dadkiisa baan u shaqeynaya xafladan aanu isugu nimid maanta oo la isugu keenay kooxihii sportska ah degmada Ceelafweyn la 6 kooxood direesyadoodii iyo 6doodii kubadood iyo koobkii iyo biladii waxaanu idinka rajaynaynaa mustaqbal wanaagsan oo ifaya iyo isdhexgal iyo walaaltinimo iyo waxaynu ahaan jirnay inaynu magaaladeena ku soo celino anana inaanu taa idin kala shaqeynaa baanu idinku ballan qaadaynaa gudoomiyaha waxa halkaasi ka hadlay wasiiradii madashani ku sugnaa waxaan anigu sanduuqii horumarinta dhalinyarada sanduuqa horumarinta dhalinyarada markaanu bilowno dhulka nabadda u buutay gaada nabad noqon weyda waxaan jeclahay in maanta nabad la idinku yimaado oo waliba la yiraahdo nimankaas waa dhiban yihiin oo ka yara hadheen ha loo yara kordhiyo insha Allah la yiraahdo marka ma isku ogaanaa inaynaan qarin ninka daalimka ee dalkeena iyo nabadeena iyo mustaqbalkeena iyo waxbarashadeena iyo mustaqbalkii nabad dilaya inaan wixii ka dambeeyo aynu dhahana bileys waynu bileyska u dhiibnay odayaasha waxgaradka ma isku ogaanaa dhalinyaro ciidan ma u noqonaysaan dalkan Ceelafweyn idinku booliis ma u noqonaysaan kooxuhu waa inay noqdaan kooxaha isku dhafan kooxaha dawladda hoose kooxaha muxuu ahaayay ganacsada hebel muxuu ahaayay kooxda muxuu ahaayay Talisom kooxda Somtel hambalyo kadib maanta waxaanu halka u fadhinaa oo furaynaa tartankii nabadda wiil ka hor waxaynu furnay nalkii nabadda waxaynu kaloo furnay tartankii suugaanta nabadda ma sha Allah waxaynu dhami waa nabad intay daawanaysa intay maqlaysa waxaan leeyahay ninkii Ceelafweyn wax kale ku maqli jiray oo maanta waxay astaan u tahay nabadda waxaan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay idinna malaynaya ina ubadkiina halkan jooga maanta hadda ay isku dhex jirtaan oo idan dhinacyo kala fadhiin waxaan idinkula dardaarmayaa sida isugu dhex jirtaan maanta caawana isugu dhex jira oo kala maqnaanina runtii waxaan kala mahad celinayaa wasiirada iyo la taliyaha madaxweynaha ee dhamaantoodba si qiiro leh oo farxad ay ku jirto ilaa shalay iyo xalay u hadalhayay in kulanka dhalinyarada ay la wadaagaan maanta Ceelafweyn tahay soo iskumaynu raacin inay ka dhamaatay colaadii soo wanaag iyo horumar iyo inay dadka la tartana maaha intaasaynu ka hadlaynaa waxaynu ka hadlaynaa arday baa tihiin intiina badan waa laga yaabaa in arday tihiin waxbarashadiina horumarkiina wax kororsigiina ayaynu ka hadlaynaa oo ciyaartu ka mid tahay kubaddu oo isdhexgalkii walaalnimadu ka mid tahay oo maalinkan maanta ah higsataan waqtiga intii idinka luntay gobolada kale iyo degmooyinka kale ee Somaliland siiba kuwa galbeedka qayrkiin halkuu jooga higsataan
ninkuna dhallinyaradii ayaa tihiin waa inay naga dhammaato xanafta iyo hadalhaynta iyo dhaqanka arrimaha aynu ka soo gudubnay dhallinyaradiina imika dhallinyaradii la nooc ahayd ee gobollada kale ee dalka joogtay heerkan halkan lagu jiro waxaa laga yaabaa imika inaan iyagu ku jirin waxaan leenahay dhallinyaro sidii raggii hore sheegay mustaqbalka waa leedihiin laakiin waa goorma markaa mustaqbalka yeelanaysaan waxaa weeye markaa hamiga iyo qamiga qabyaalada iyo qolada ah ka baxda wasiirkii igu horreeyay cayaartu cayaar hufan ha noqoto cayaarta maalinna waad badinaysaa maalinna waa lagaa badinaya maalinta lagaa badiyo badiskaaga maalintaada sug asluub iyo dhaqan laabta iswada saara garamada la kala baxa isu dhiiba aad iyo aad baan idin hambaleynaynaa waa maxamed suuta telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Ceelaf Weyn